wacdigelintu way fiican tahay waana wax meesha ku jiro oo dawladda iyo dadku inay wada xidhiidhaan oo ila xoolaha iyo dadku waa ka dhaxeeyaan inay hadeebeen wada xidhiidhaan oo wada shaqeeyaan wax muqaddas meesha yaal waxaanu ka fahnay sidoo dawada noogu sharaxay sidii loo isticmaali lahaa in dadka wixii magaraysa aan qaadan karin laga ilaaliyo in marka xoolaha siday tahay loogu mudo in neef waliba wuxuu qaadan karo lagu mudo waa taana waanu ka fahnay xoolaha ay shaqeynayay xoolaha dadka u shaqeynaya idinoo mudantiinaydo ma hadda ilaahay baa iska leh idinku midnaanshaha leedii xoolahana gabigeenu ka marmayno ilaa min madaxweynaha u sareeya xoolu leeyahay ilaa ninka hooseeya nolosha aynu ku noolahay waa xoolaha loo dadaalo oo dadka dee shacabka ahayna wacyigelinta ha qaataan abalukaadi dadweynaha waxaan leeyahay iyo inaan marba meel ka dacweyne xoolaha goobaha loogu talagalay aynu keenno oo ka daaweyno oo markan wacyigelinta maqallo aynu keenno xoolaha keenno ayaan idinku wacyigelinayaa waxay xooluhu ka fadhiyaan wasaaradda ganacsiga waa kuwaas xooli iib ma laha xooli waa kuwaas neefka ugu qaalisani $40 ma gaadho ariga alaha ku xidhan soo egtaa $40 ma gaadho dalku xanaanada xoolaha kama fadhiyo ganacsigu ka fadhiyo madaxweynaha waxaan u sheeganaa ee ganacsiga xoolaha in wax weey wasaaradda ganacsigu iyada ganacsiga inay wax weey ku talaabsato ganacsi xooluhu helaan raashinkina waa qaali xoolina waa sharafta leh xanaanada xoolaha ka socda wacyigelinta waa soo dhaweynaa marka hore waana salaamayna bacda salaan xooluhu waxaynu horta dee Soomaaliland ama Soomaaliya waxay ku dhaqantay waa xoolaha ilaahay amarkiisa ku dhaqantay laakiin waxa la quuto waa xoolaha xooluhuna waxay u baahan yihiin dhaqaalayn badan in shilinta laga daweeyo in xanuunka laga daweeyo in la dhex maro in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay maadaama aan noo timaadeenna waa idinku mahadnaqaynaa waa idin soo dhaweynaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan idinka codsanaynaa oo keliya waxa weeye wax wali tobageeda in laga baxa maaha qolada ganacsiga iyo xanaanada xoolaha waa laba wasaarood oo kala baab oo midaba qayb gaar ah ka shaqaysaa anigu ganacsi idin weydiin maayo laakiin waxaan idinka codsanaynaa inaad saa u wareegtaan xoolaha ka warhaysaan geel iyo ari iyo lo iyo dameero iyo wax kasta way jiraan sidaa u wareegaysaan waa ku mahadsantihiin waan idinku soo dhaweynaynaa dadaal aan idin leenahay waa dadaalaysan Allah idin la qabto meel kastana dee waa u taagantihiin ma aanan arag anigu kullama arag waan arkay qolooyin wax dadweynayo laakiin aan tiimka dee codka duubaya ee sawirka wata ee wacyigelinta maanu arag waa noo kow marka waa ku mahadsantihiin halkan xaruna way noo tahay